aragtidayda waxaan ku xusayaa Soomaalida aan ka dhashay waxaan cadeynayaa waxyaalo badan oo la ilowsan yahay haddana xaqiiqo ah oo jira aabe Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed ayaa hadda wuxuu imaanayaa meel deetana gabar buu jeclaanayaa gabadhi ayuu muddo raadinayaa silac badan buu u marayaa deetana gabadhi way ishelayaan markooda dambe markay gabadhi ishelaan hadhowdii soomay ahayn inuu ka shukri celiyo gabadhi ilmay u dhalaysaa hooyay noqonaysaa ifan oo kale gabar bay u dhalaysaa gabadhi markii la dhalay inan bay noqonaysaa dee nin bay u baahanaysaa dabeeto markaasaa gabadhi waxaa lagu bilaabayaa caburin celcelin ilaalin iyo maxbuusayn gabadhi way fekeraysaa nin jacayl baa helaya dooqeeda si u doorato mataqaano waxaa dhacaysa gabadhaasi in ay banaanada u baxdo deetana rag meelo fagfag kula kulanto deetana markay la kulanto dee raggu uu kala aftahansan yahay wuuna kala caqli badaya in wiil dareen xambaarihii helo deetana hadday doonto ayana dee waa bilo-aadan ee dareen galo inta la isku firgado deetana ilmayaal iyo wax ka dhacaan deetana maalinkaasi waxay oranayaan hoogaya see yeelaa oo ma hoogaya baa loo baahan yahay adaa dhibaatadan ka shaqeeyay dhibaatadan ma waalidkaa ka shaqeeyay mise dadka dhalinyarada baa ka shaqeeyay dee waxay noqonaysaa waxaa ka shaqeeyay waalidka waxaa kaloo jirtaa gabar ayaa nin iyo gabar baa wiil iyo gabar baa wada sheekaysanaya deetana way isjeclaanayaan waxaa dhacaysaa waalidkii baa la isweydiisanayaa waalidka cid bay u sheegaysaa sala oranaya ma kan keera oo tan keera oo xagga keera gabadhuna dee ifan wiilku hadduu sheego gabdhaha qaar baa sidaas kula helaya gabadha reebel oo keera marka taasi waxay dhalaysaa dee inaan qofkii wixii uu hobbigiisa ahaa uusan helin hadduu hobbigiisii waayo uu arko inaysan dadku la wadin dee asaga ayaa tala kala gaaraya taasina waxay kalifaysaa qofkii arrin uusan aada marka hore u rabin inuu aada usii raboodo haddana arrinkii hadduu jamac ahaa keli ku noqdo marka arrinkaa